الحمد لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا له قيمها بدن طبتم وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الإيمان والحياة إيمانك ينولشا الله وين وناكسن أيا وحا قري قف آن إيمان لهين إنوس النولين أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قف بلا إيمانه من نولا nolosha dhabta ah waxa uu qofku fahmi karaa oo noloshiisu macno yeelanaysa iyo dhadhan marka iimaan sax ah uu helo. ya ayuha alladhina aaminu billahi wa rasulihi ay jaddidu iimanakum. dadka mu'miniinta ah baa la hadlayaa. aayadaas marka aynu dul istaagno marka waxaynu ka dheehanaynaa kow al-intisaab al-haqiqi abtirka dhabta ah halka uu ina ka jiro. bini aadanku saddex qaab bay u abtirsadaan baa la yiraahdaa. waxay ku abtirsadaan ab, waxay ku abtirsadaan ood, waxay ku abtirsadaan aragti. ab baa lagu abtirsadaayo reer hebel weeye waa arinta aynu naqaano inaga ina aafaysayba. ood baa lagu abtirsadaa oo waa reer batalaale, waa reer berbera, waa reer saaxil ka sii soco. ood wadaag baa leeyahay. aragtina waa lagu abtirsadaa. abtirsiimooyinka noocaas ah waxa ugu sharaf badan oo ugu qiimaha badan midda aragtida. dadka aragtida ku walaaloobay watan islaamku faafinayay ee sababtay inuu walaaleeyo muhaajiriin iyo ansaar. aragtiyada diiniga ah ee lagu abtirsado halka ay ka soo unkanmayaan ay ka soo burqanayaan waa dadku inay ku walaaloobaan al-intisaab ila al-iimaan. iimaanka reer iimaan baa la dhahaa. yaa ayuha alladhina aamanuu dadka mu'miniinta ahow. qofku marka waxa la rabaa inuu dareemo caa'ilada weyn iyo qoyska ballaaran ee yaa ayuha alladhina aamanuu la yiraahdo buu ka mid yahay iyagu u abtirsadaan. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم أي أورنيين. قفكم مركا انتساب كاوين أو أبترسنا يو عائلة دا بلارن وحكد لنا يا التزامات وحكد لنا يا أحكام إن مؤمن بانهاي بهوين تمؤمنين تانكتر سنهاي واجبات باكد لنا يا. لذلك قرآن كوحل إلى هذا waxaa ku soo arooray 9 mar ayay ku soo aroortay yaa ayuha alladhina aamanu 90 marra 9 mar ayaa waxaad quraanka ka dhaxelaysaa yaa ayuha alladhina aamanu halka yaa ayuha alladhina kafaru ay hal mar ku soo aroortay. qiimo ma leh iyagu dadka marka mu'miniinta ah ee 9 ka mar loo yeeray tarjumaanul quraan wa habrul umma wuxuu dhihi jiray هداد مقشد إذا سمعت هداد مقشد يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك مقل كأرى الرعي وصفي عن أدقيسو فإنه خير تؤمر أو شر تحذر. أما خير بالغ فريا يوناك أما شر بالغ قدقيا. وحلوبها هي مركا كو آيات كاس قرآن يا أيها الذين آمنوا لقبل أبيه إنه لنو لانو ودبو راد راعنو oo akhrino si joogto ah macnahooda u dhuuxno si aynu abtirsiimaha aynu u abtirsanayno kuwa mutaysta tilmaanta noocaas u noqono. ugu dambeyn waxa aan ku soo gabagabaynayaa mu'miniin baynu nahay, ahlul iimaan baan nahay. caa'ilada ballaaran ee weyn ee iimaanka ayaynu u abtirsanaynaa. iimaankuna waa halkii noloshuba ay ka bilaabanaysay. sidaas iyadoo nabigu sallallahu alayhi wasallam ina barayo ayuu wuxuu leeyahay shucab al-iimaan laamaha iimaanka laanta ugu sarreysa ee laa ilaaha illa allah marka laga yimaado ta ugu hooseysa haddii abtir
laangaab lagu noqdo oo ood iyo laangaab lagu noqdo laangaabka diintu waxa weeye waa midka hoos uga dhacay laanta ugu hooseysa adnaa shucabil iimaan laanta ugu hooseysa laamaha iimaanka waxa weeye imaatatul adaa can الطariiq waa noloshii waa itqaankii iyo karun sheegidda nolosha iyo shaqada imaatatul adaa can الطariiq inaad jidka ka leexisid waxa dadka dhibaya waa laanta ugu hooseysa laamaha iimaanka qofka laanta ka hoos maraa muxuu haystaa xagee buu joogaa khaanadee buu ku jiraa adba waxaa loo baahan yahay marka inaynu la noolaano shucabka iyo laamaha iimaanka inay la noolaano macaanida iyo tilmaamaha mu'miniinta si aynu u noqono mu'miniin dhaba qofka wadada ka leexin waaya dadka waxa dhibaya bale isagu noqda kii dadka dhibayay ama isbaaro dhiganaya ama jidgooyo sameynaya ama dadka jidka maraya baaranaya ee mobilka furanaya ama waxyaabaha noocaas ku dhaqmaya dadka noocaasihi waxay hoos uga dhaceen laantii ugu hooseysay laamaha iimaanka inay u nisba sheegtaan mu'miniintana ceeb bay ku tahay waxa loo baahan yahay marka inaynu si sax ah iimaankeena dib u muraajacayno dib ugu noqono si aynu u noqono kuwa nolosha wax ku biiriya maxaa yeelay waxaynu nahay ummadii nolosha ummadii Ilaahay ugu talagalay inay si sax ah u noolaato bii'ada iyo bulshadana ay noolayso Ilaahay wuxuu ina faray laba arrimood kow cibaadatullaahi waxda inaynu isaga caabudno kaligiis labo cimaaratu ardillaah inaynu dhulka camirno oo aynu noloshan oo dhan inagu steerinkeeda hayno oo aynu noqono kuwa looga dameeyo maalintii mu'miniintu ay mu'miniinta dhabta ahaayeen waxay ahayd maalintii steerinka dunida hayeen maalintii iyagu hagayeen maalinta caafimaadka iyo nolosha iyo wax walba iyo horumarka oo dhan iyaga laga qaadanayay markii jaamacadaha muslimiintu ay ifayeen markii caasimadaha muslimiintu ay ifayeen galbeedka maanta ifaya mugdi buu ahaa maxaa yeelay dhakhtarka amaliyada ka soo baxa markuu ka soo baxo operationka masjidku imanayay si uu uga khudbeeyo ama darsi diiniga uga jeediyo ummad waxay ahaayeen diiniyo dunyaba isku wata oo si sax ah nolosha ula falgalay oo u noolaaday waxa loo baahan yahay marka inaynu noqono mu'miniinta Ilaahay uu rabo raadinayo oo tilmaamaheeda aynu yeelano جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وكل إرادة يقرأ لها